kaalinta koowaad isa kala ah 7 8 iyo 9 وبلاوينا مع كده لح سدح تضو شم حال إبر لابو لح إبر لابو لح بيتي كمان حوالي وتضو شم حال بيتي كمان سيان لح سدح براو ما شاء الله ثانك يو ما شاء الله اوكي سديد سجال سدح أفر لح شم لابو سجال سديد أي معنى إبر سدح لابو شن تضبط هل سديد لح إبر سديد لح إبر إبر لابو صدح تضبط سديد اوكي اوكي كخالد الله اسمه بس انسى يلا هاي bilaabena sagaal labo eber hal lix afar toddobo sagaal shan sideed saddex afar shan sideed saddex afar toddobo lix eber ما شاء الله هل حبة قلب هل حبة كخلف أيوة على سؤالنا دي لح سجال تضوء سجال شن أفر إبر أفر سديد تضوء لح واو صدق غلط تضوء سجال أفر شن سجال إبر تضوء لح لبو سديد سجال شن
fiirina macna sideed lix sagaal eber shan toddobo sideed hal sideed lix shan labo sideed lix shan labo sagaal lix shan toddoba sideed shan lix toddoba sideed iyo shan u sax maykan hoose sideed u kor وكا أردنا saddexna baro khalde بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما أنت هدول بلاد كنقضو وحنا بلسن تيمكي همير رياضة بحين كل بوليسين دونان بوجا هوا نورا waxaan kasoo qayb galnay barnaamijka qabato waxdheef oo lagu bixiyo abaalmarinta guudka loo tartamo fikrad wanaagsan oo dhalinyaro aqoon-yahaniina mataqaana bulshada kusoo kordhiyaan ayaan u arkaa barnaamijka horeysaan kasoo qayb galay inkastaan laakiin awal la socday marka waxaan leenahay halkaa kasii wada insha allah dad badan oo nagu doorsiin waan rajeynaynaa waan rajeynayaa sidoo kale tartamada soo socda inaan ka qayb galno si aan uga helno mataqaana waayo wax akhris aad ayay muhiim u yahay doorkaad ka ciyaarteen waa lagu gaadiyana asalaamu calaykum waxaan halkan ugu hambaliyaynaynaa guuleystayaasha usoo gudbay barnaamijkeena imtixaanaha ahaa ee tijaabi xasuustaada qaybihiisa kala ah 7, 8 iyo 9 codeynta buugaagta waxay ku ekeyd xala 4 saac oo habeenimo waxaa ku guuleystay kaalinta koowaad Taariq Carfaad. Taariq wuxuu helay 84 like halka kaalinta labaadna ay gashay Maymuun Xirsi waxay heshay 76 like kaalinta saddexaadna waxaa gashay Hodan Axmed ayadana sidoo kale waxay heshay 43 like sida aad aragtaan screenshot-ka aan qaadnay xilligii ay ku ekeyd codeynta halkan ugu hambaleynaynaa dhammaan guuleystayaasha waxaan idin leenahay dadaal badan ayaad bixiseen waxaanan idinka codsanaynaa in aad nambaradiina qaybta hoose ee faalada aad noogu reebtaan si aan idinkula soo xiriirno sidoo kale waxaan idin leenahay qof walba oo guuleysta ah ha diyaarsado 2 ka mid ah saaxiibadiis hana usoo diyaar garoobo barnaamijka tijaabi xasuustaada